محاضرة أهريس مؤتمرك أيان هذا نقول قلينا إن شاء الله تعالى. محاضرة عنوان كذا وحوي التخطيط للمستقبل وحانين وسو تشيدين دونا إننا فاهين دونا شيخنا شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون فليتفضل مشكورا مأجورا. سودو شيخنا. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكت المامية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن شاء الله درسي يقول لبدنا آيادات بكوري قدونا. آيات كان وحي كورميان قفك مسلم كاه ورب سبحانه وتعالى أتلماميه إنو فيريوها مسقر شايه مستقبل كيسا صاصادة. وحيث ويدين لقف هداتهاي قويس هداتهاي بلشاء يوم هدينو نهاي متكستبها النقطة إنني سويدين ومدينو حاجة وصعطة. المستقبل القريب والبعيد، مستقبل كينا دو إيا كينا دروكسان لبادو بحاجة ينوصعنا، ما اتجاه صحيح ينوصعنا أم ننتظر المجهول مسه وحن بين سجينا وحن مقان غيبك وحو النقضون وإنه كملهن وح تخطيط أما وح قرشاء إنه كليني ما جرته حيث إنه لشدو أهدافته أما غاياتك إنه ربنا إنه تحقيقينه وصمينه قولسك أما هميلوينك إنه ربنا إنه قادنا محيه محيتهاي أهدافتنا ديري محل قياسا ما مقياس ذلك إنه هرو صعني إنه ندبو صعنا محينو كو قياسنا سيلو قيمينيا بلشاهان مركا إنه أغنه واحد مودا ودن كان يدد إنه فوضى بدن كتشيرو هدايتين نولوشا قويسكا تقفكا تبلشادا تدولد نمادا انتو باينو قرشوه كيريهاي. waxaynu markaa isweydiinaynaa dunida maanta la joogo sidee bay u suurtagal noqon karaysaa dad aan noloshaba qorshe ka lahayn inay u noolaadaan ama se u joogaan iyadoo dunida loogu noolyahay maanta sida loo kala xoog badan yahay. alquwa hiya alqiima alxaqiiqiya fi hadihi dunya alyawm. awood ama xoog ayaa maanta valuega kaliya ama qiimaha qura dunida tan ay eegto. haddaba su-aashu waxay tahay noloshaada maxaad ka damacsantay? noloshaada soo socota maxaa kuu qorshaysan? ma inaad dhalato oo dhimato? ma inaad jaamacad ka baxdo oo waxbaratid oo guursatid oo lacag samaysid? ma intaasaa waxaad u nooshay mise qorshe kalaa jira? qoyskaaga maxaad u qorshaysay? dadkaaga iyo bulshadaada maxaad u qorshaysay? dunida aynu maanta ku noolahay waliba علوم المستقبل وحلا هذا ما أنت عاد له أديك سدا وحتى علماء قاركوت كتب تودا كتب الماميان وعلماء قاركوت كتب الماميان من فروض الكفاية يكون شيء جنبه وإن دتكو استشرافا ما سووا دراسة مستقبل كصاص عدا يسقو كو إيجيه awoodiisa maanta uu hayo iyo taariikhdiisa tagtay iyo soo jireenkiisu wuxuu yahay iyo taaqada bulshadiisa iyo dadkiisu ay leeyihiin iyo waxa la tawaqucayo ama la filayo inay dhacaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka wuxuu inoogu tilmaamay bini aadamku mararka qaarkood mustaqbalka siduu u arko. ayawadu axadukum an takuna lahu jannatun min nakhiilin wa acnaabin tajri min taxtiha al-anhaar له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إلهي الصورة بوينو صوري sheegaysa midkiin miyuu jecel yahay isagoo beer iyo baraadhe iyo barwaaqo ku jira, beer isku baxday oo webiyaal hoos marayaan oo midhale oo wax walba, isna uu soo tamargabayo uu gaboobay, duul yaryarna uu dhalay, caruur yaryar aan markaa waxba qabsan karin, dabeetana duufaan haleelo, icsaar uu haleelo ay gubato. qofkaasi suuradda baan laynoo sawirayaa muxuu filayaa? mustaqbal madow buu arkayaa. isaga tamari kuma hadhin, kuwa korinaya waa yaryar yihiin, beertii waa gubatay. sawirkaasi siduu egyaa ilaahayna hordhigay subxaanahu wa tacaala. kadib baa ilaahay wuxuuna leeyahay kadalika yubayinu allahu lakum alaayaati lacallakum tatafakkaruun. sidaasoo kale baa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadka idinku caddaynaya لعلكم تتفكرون سيأو فكرتان وحضي موطان. أيها الأحبة، وحين لنا الدين تعالى ينسد سبحانه وتعالى وحي كصة ليسنتي على التخطيط للمستقبل ورفض العشوائية والفوضى. إن يدتكو إن بدن قرشيان نلشو تمادد إصاص عطا إن أنا باس كل هين نلش قفك مسلم كفوضى أنركي maamul la'aanta iyo iskadaba wareega iyo bariba waxay noqon doontaa siday maanta ahayd inaad u fakarto. haddaad u fiirsatana noloshii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaabkaas bay u dhisnayd. mithaal waaxida haddaynu tilmaamno hijradii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. culamaa siira markay hijrada inoo akhrinayaan imisun bay inoo sheegaan qorshe uu nebigu degay oo ah balaankii uu ku talagalay markuu hijroodo meeshuu mari lahaa, siduu cadowga uga dhuuman lahaa, siduu raad gadan lahaa, wadadu qaadi lahaa, ciday tay cidda hogaaminaysa, cid aan laga shakinin inuu daliil ka dhigto, raaxilaadkay fuuli lahaayeen inay diyaarsadaan, wakhti aan la filaynin inay baxaan, meel aan la rajaynin inay qabtaan, inay u kacaan, buraley inay maraan si ay u raadgataan. yacni markaad daraasayso nabiga calayhi salaatu wasalaam hijradiisii waxay kuu tilmaamaysaa in layna barayo tashriic, iyadoo taasi ay cagsi u tahay maalan israagii alisraa walmicraaj. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam alisraa walmicraaj wuxuu ahaa tashriif iyo tacdiim iyo tasliya, weynayn ilaahay uu nebiga weynaynayey, la samirsiinayey, balaayiin kilomitris dhul ah bal aan kilomitr ba lagu qiyaasi karin ayaa nabi maxamed ilaahay ka kaxeeyay maka oo geeyay bayt almaqdis oo laga dheelmiyo cirka la qabadsiiyay oo la soo celiyay. maaha mas'ala loogu talagalay inaynu kaga dayanno ama awoodeena kuma saabsana, laakiin 500 kilomitr in ka yar isagoo soconaya oo Maka iyo Madiina inta u dhaxaysa waa less than 500 kilometers. 500 kilomitr bay ka yartay. ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga waxaa lagu ilhaamiyey khitadii uu halkaa ku gaadhi lahaa iyo inta ay qaadatay iyo muddo 14 cashaa in la lugeynayey oo waxaasoo dhiba laga marayay. taas baa takhtiidkeeda leh. tani waa litashriic, tii hore litashriif bay ahayd, israaga iyo micraajka iyo kuwa kane. ama tani waa litashriic. walidalik baa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu dareemaynaa qorshihiisa uu degayay sida uu ahaayee waxyiguna hagayay, xataa caalamka iyo waxa ka socda sida ula socdeen, oo labadii dowladood ee waaweynaa iyo dagaalkii ka dhex socday ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ugaga warramayo, iyo ogaalka uu nebigu ogaa calayhi salaatu wasalaam xataa saxaabadiisa markuu rabay inuu u diro ardi alxabasha inuu dareemaya ama se warkaa uu hayay ayna xaggani ka cadaalad badantay labadan dowladood iyo intaan agagaarka joogto oo dhan, dowladdaasi ka tirsan dhulka xabashidu inay ka cadaalad badantay. waxaasoo dhamme waa wax tilmaamaya inaanay muslimiintii hore dad ghaafiliina ahayn ama dad iska socda ama dad uun suga mustaqbalku waxa uu noqonayo. bale xadiiska qaarkood baa waxay inoo tilmaamayaan
waxyaabaha wax lagu qiimeeyo marka mustaqbalka qorshe loo degayo ugu weyn waxa kamid ah al-ihsaa'iyat statistics data in la helo tira koobiyo awoodaada xoogaaga tiradaada dhaqaalahaaga waayo waxaasaad ku qorsheynaysaa inaad mustaqbalka wax kaga qabato ila xaduu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixayn ku yaala riwaayada muslim ahsuliya kam yalfadhu al-islam iso tira koobo bal inta qof muslima joogta magaalada Madiina ama riwaayada Imam al-Bukhari uktubu li man talafadha bil-islam min an-nas dadka inta ku dhawaaqday islaam iso qora uu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam waxay markaa la budda min takhtit la budda qorshayn inaynu helo la bud say nolosheenna fawdada uga baxdo siiba ummadda Soomaaliyeed waa ummad aanay inta badan tirada ugu jirin saadaalinta mustaqbalka iyo waxay sugayaan إلهي وحين لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وركوا إيمانك لغاها ليو اتقوا الله لك عبصدا ولتنظر نفس ما قدمت لغد بري وحينا في أردقتي وحي أهرو مرستي وحي أردتيستي سودي تدا ما تغانين عنها ولا دتي داسي بري لولو والغسي تلقى على بري si loo luli karo inay maanta dhitan noqoto waxa la leeyahay waxaad u dhitaysatay baraad lulane waxaad lulanaysaa waxay noqonayaan fiiri wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad hadaba uga warramay maayo mawduuca kan sida idaariyiintu uga warramaan علماء الإدارة يقابك uga warrami maayo laakiin waxaan uga warramayaa inaan tanbiihiyo bas iyo waxyaabaha asalka aynu u baahanay inaynu isticmaalo ugu horeyn ilaahay wuxuu ku baraarujiyo inuu ugu bilaabay ya ayuha alladheena aamanu taqullah markaas hadana la yiri wattaqullaha inna allaha khabiirun bima ta'malu wal tanzur nafsun amarka labada hareeroodba waxa ka xiga alla ka cabsi baa layna faray macnaheedu waxa weeyaan khitadkeena iyo waxaynu mustaqbalka qorsheynayno dhami waynaanu marnaba noqonin wax ilaahay tiisa khilaafsan waynaynu cala alhuda inagoo ilaahay ka cabsanayna waayo cid kasta oo khutad degta calaa gayri huda allah lam walan yuflixu ma guulaysanayaan maxaynu u leenahay markaynu qorshe degayno alla ka cabsigu kowha ka noqdo ugu horreyn qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamay inay nolosha fududaanayso bini aadamkuna waxa uu jecel yahay uu rajaynaya waa inay wax u fududaadaan xataa hadduu qabanayo inuu si fudud u qabto waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusran baa ilaahay yidhi ciddii ilaahay ka cabsata arrinka alle waa u fudaydinaya waxaynu rabnaa khudada u degaynoo dhammi waa nolosha inaynu si fudud u noolaan karno ilaahayna wuxuu inoo ballan qaaday ciddii ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa iyo ka dhowrsata naartiisa in alle dadka u fudaydinayo waxaa markaa qorshe la degaya lagu talagalaa riskiska jira waxaad adigu rabto quran lagama hadlee waxa laga hadlaa maxaa dhib kugu xeeran maxaa kaa hor iman kara maxaa dhici kara maxaa isbedel iman kara maxaa caqabad kugu noqon kara quraanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa alla ka cabsigu inuu masaa'ilkaana makhraju yahay riskiga ama caqabaadka ka hor imanaya qaabka loo daweeyaa inay ka mid tahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ciddii alla ka dhowrsata in alle subxaanahu wa tacaala problemska iyo mashaakilka makhraj uga samaynayo way out meeluu ka baxo inuu helayo qorshuhu wuxuu u baahan yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku hanuuniyo samaha kugu hanuuniyo ama aqoon waxaa qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamaya wattaquu llaha wayucallimukum allah wallahu bikulli shayin caliim saa awgeed ayuha alaxiba waxaa layna barayaa inuu qorshaheenna ka horeeyo alla ka cabsigu dadka maanta in badan oo ka mida dadka ummadda qorshaha u degta 5 sane soo socda maxaa la qaban 10 sane soo socda maxaa la qaban
laatanka sane soo socda maxaa la yeeli waxaynu u badannay inaan masaa'ilkan inooguba jirin tirada inaanay ku jirin dhaatada aynu soo urursanay aynu rabno inaynu wax ku baysgarayno ama ku dhisno haddii alla ka cabsigu uu horeeyo waxaad helaysaa basiira aad ku kala aragto mustaqbalka dheer in ilaahay subxaana wa tacaala toojka ku wiifiyo sida ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana ilaahay haddaad ka dhowrsataan oo la ka cabsigu uu yahay main pointkiina ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idin yeelayaa furqaan bayna alxaqi waalbaatil waxaa xaq iyo baatil ku kala socdaan ama waxaa ku kala socdaan sawaabka iyo maxay iyo khata'a ama waxaa ku kala socdaan sharka iyo khayrka baa helaysaan baa rabbi tilmaamaya subxaana wa tacaala waxaan ku gabagabaynayaa mas'alada tan waxaad helaysaa ilaahay kaalmadii واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين إلهي كالمدي ينو كوافجيو سيد الصواب كوكجرو إذن كو وحن لنا هاي إلهي وحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللعب سيدي بالله فري مركو هوري كدب بالله يري خطة دينا ندك سدا إيغا بري وحاو هورو مرسنسان قضب كالبادا أن تلمام يا وحوي هاي خطتك ضدك مسلمين تأيدجيان هدو قف يهي يهدو كبدن يهيبة وين النقضة محي بعد الله سبحانه وتعالى الاعتماد على النفس لا على الغير لا على الآخر عالم كمان ترقبة وحي قوان صدرين يجوا أوصية ونقضان إن يهينون هداني يجوا كجردادين إن أظهروا مرينين وحنا كما جيران دولتها يرير iyo dadka masaakiinta ay caankani waxay in badan eegaan المجتمع الدولي muxuu inaga qabaa dawladaha waaweyn sidee qorsheena warkaya ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya alla ka cabso oo qorsheeya nabiguna wuxuu leeyahay ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz كددال وحكو أنفعية في الدنيا والآخرة إلهينا كالميسو وربي هنغضو عدة كتير سنة هنا عاجسين أي لا تعتمد على الأسباب وتغفل عن ربك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا كوا هو عننا دنكودا markaynu masaladan ka hadlayno ugu horey weynaynu garanaa meel firaaqa ama deganin caalam iska bannaan oo adiga qorshaha ku soconaya waxaad qorshaysaa ma deganin waxaynu degannahay duni masaalixda iyo ahdaaftu ay mutadaarib tahay duni iska soo wada horjeeda oo nin waliba maslaxadiisa iyo dantiisa ilaashanayo waxaynu joognaa meel si loo gaadho cid waliba maslaxadeeda iyo hadafkeeda awoodeeda oo dhan ay isticmaasho waxay dhahdaan kuwa xooga badan leh ee maanta dunida qaybta badan waxay u arkayaan horumarkoodu inuu ku xidhan yahay dib u dhaca ummadaha saddexaad siiba ummadda muslimka sadaraadeed qorshahooda waxaa ka mid ah inaad adigu weligaa horumarin weligaa inaad horumarin baa qorshahooda ka mid ah walidalik ayaa hay-aadkooda dhabta ahi waxay fuliyaan waxaa ka mid ah waxaa la yidhaha siyaasatu takhriib subversion in la qaso ummadaha inta kale idan waxaan leenahay meel baynu fadhinaa aynu rabno inaynu horumar samayno ama ummad noqonno ama dad noqonno ama dowlad noqonno laakiin waxaa kugu xeeran cid aan ogolayn inaad waxaasi samayso subversionku المخابرات العالمية ووحا ugu badan ee loo dhigo saa ummad loo hagardaameeyo saa dad loo dumiyo waxay dhahdaan ummad kastoo saddex shay loo sameeyaa horumarka dheer waa halkeeday nagaanaysaa saddexda shay waa maxay waxay dhahdaan ixbaad demoralization in dadka lagu qanciyo
inaanay hore u socon karaynin in lagu yidhaahdo adiga imkaaniyaadkaaga iyo awooddaada iyo tamartaadu ma saamaxayso waxaasi adigu waxaad u baahantahay bay ku leeyihin capacity building soomaaliya imka 30 sannadood waxaa lagu waday maxay capacity building waa ma awoodaane waa laydin dhisayaa awooddiina la dhisayaa kuwa dowladda yar haysta iqtisaadiyaadkooda waxa ugu badan ee lagu tawjiihiyaa waa iqtisaad siyaaxa waa dhaqaalaha ku salaysan bay yidhaahdaan maxaa la yidhahaa tourism siyaaxa waddankiina meel loo soo taga ka dhiga xayawaankiina ha dilina kan ha samey iyagu intoodii way mariyeen maxay iyagu u dayn waayeen siyaaxadu waxay yidhahdaan in economics marka la joogo waa qaybta ugu horeysa ee dhaqaala burburka uu ku dhaco bini aadamka marka dhaqaala burbur bilaabmo bal wadanadan islaamiga u fiirso waliba waxay leedahay raxanta dayuurada ee dunida ugu badan iyagoo qoobada yaryara ayaa qolo waliba waxay leedahay raxanta dayuurada ee dunida ugu badan qolo waliba waxay doonaysaa inay siyaaxa ka shaqayso waa dhaqaala burbur sidiisa u yaala dunida waxay yidhaahdaan ma horu maro ummadaan industrial noqonin ee casrigaynu noolay waxay yidhahdaan marka ixbaadku waxa weeyaan in adiga demoralization lagu sameeyo in lagaa dhaadhiciyo inaanad wax qabsan karin inaad dambayso inaad ku qanacdo kaalmadiisa mooyaane inaad adigu hore u socon karin ka labaad waxay yidhaahdaan weliba waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdaan miyaa la maagaya maya dowladaha waaweyne waxay u leeyihiin gruub dhaqaalayahanaa oo masalada ka fakara oo wadannada kale tala bixinta siiyaa sidii loo dumin lahaa waa gruub dhisan maaha wax theory waa gruub dhisan waa kuwa ka warramayo kale convention of economic hitman ninkii qorayo kale oo ka mid aha gruubada tan bale waxaan idiin sheegi karaa gruubada qaarkood in xataa rag Soomaaliyeed ku jiraan dhaqaalayahana Soomaaliyeed inay ka mid yihiin markaynu taas soo dhaafno waxaa garan kartaan waxay ku sameeyeen Asia iyo numur sabca dowladii la lahaa waa tigerska ama shabeellada toddobada ah hal dowlada baa tala bixintoodii diiday iyadoo qura badbaaday intii taladoodii aqbashay waa la waayay Malaysia qura diiday tala bixintii Western ku bixinayay way guulaysato mushkiladda way ka baxday lixdii qaatayna way jabeen shayga labaad ay sameeyaan ee subversion ka ahi waxay yidhahdaan waa zaczacatu istiqraar destabilization in waddanku crisisku uu ka jiro had iyo goor inaanu degin dadka badh baa u haysto moodaya dowladaha waaweynay inaynu degno inay rabaan in dagaalku inaga dhammaado inay rabaan in caynkan ma jirto waxay u socdaan inaad weligaa degin dee innaga waddankeenna waxaa lagu maamulaa maxay albandi saabic bandiga toddobaad ee United Nationska xeerkiisa bandu saabic macnihiisu waa maxay waa qofku isma maamuli kare hal la maamulo qofku isma maamuli kare ilma yara caruurta aabihii markuu dhinto maxaa la yidhaahdaa xoolihiisa ma maamulan kare wuxuu u baahan yahay maxay wasiy cid maamusha oo meel gaadhsiisa bandiga kani wuxuu qorayaa waa intaa askar ma yeelan karaan way istilayaan qoriya ayaan laga iibinin dowladnimada xeebtooda ma ilaashan karaan cid kale ha u ilaaliso wax kasta soo qabo waxa ma samayn kartid ilaa iyo ogolaado mooyaane adiga ciidan kale in lagu dul dhigo wax kale waxani ma aha jacayl lagu qabo ee waa destabilization waa inaad ku jirto inaad weliga soo kicin Soomaaliya meelaha yar ee nabadu ka jiraan waa meelaha laga yaabo inaan iyaga askartoodu imanin iyo inta iyaga la socota aanay ku badnayn kolay kama madhnee ayaa inta nabadu ka jirto qodobka saddexaad ee subversion theory uu tilmaamaa waxa weeyaan waa waxay dhahaan crisis normalization tatbiic al-azma qofku marka dambe balaayada waa inuu arkaa inay nolosha ka mid tahay halkay Soomaalida la gaarsiiyay weeyaan qofka Soomaaliga in wax badan iba jiraan ma arko maalinta qarax yar ee dhacaw isdhaa wallahi dhib baa soo korodhay laakiin wuu la qabsaday wuxuu bartay inuu la noolaan karo dhibta
dabeetana waxay dhahdaan crisis normalization qofka haddii la gaadhsiiyo dhibta inuu la noolaan karo hadduu gaadho waa halkii lala rabay. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka in badan buu dadkan kaga digay. waxaanaan tilmaamaynaa ma aha wax wadaa tilmaamayo, waa waxay istaraatiijiyaad ilcaalam ku dhigaan. maalan waxaa jira buugu qoray nin jayniisa 2500 sannadood ka hor noolaa, Sanadzo baa la yidhaahdaa, oo filosof generaal la ahaa. buuggiisu waa weedho koobkooban, waxaan filayaa 600 iyo dhowr statement oo koobkooban inuu yahay. culamada istaraatiijiyada dunida daraasaysoo dhan baa loo dhigaa, militariga dunida oo dhan baa loo dhigaa. waa kalimaad koobkooban oo ninka kani markaa waa nin filosof ah, fanniga istaraatiijigana looga dambeeyo. waxa uu yidhaahdaa إن إخضاع العدو من دون قتال هو أرفع امتياز غيره. عدو غاينة تشبيسه وهو كهوسي ما دا أدقو أن لا تضررني وهيرك وقصر رئيسين لقاربود. والعمل العسكري هو أقل طرق جودة لإخضاع العدو بوده. ملة ترلي إن أدعيدو تشبيسانا وقابك وقهوسي عدو لو تشبيه بولي. يعني إن ciidan iyo hub iyo dagaal ku jabisa waa qaabka ugu liitaba, waa farsamada ugu liidata. laakiin farsamada u sarreysa waa maxay? inaad ninka jabiso adigoo aan dagaalamin, adoon askari kaaga dhiman ama waxba kaaga dhiman inaad jabin karto. walidaalika wuxuu tilmaamaa in al-acdama bayna al-qaada laysa al-muntasir fi 100 macraka bal dhalika alladhi la yahtaju itlaqan ila al-qital liyantasir. halyeyga ama geesiga weyn ee hogaamiye ee laga dambeyn karaa ma aha buu yidhi ninka 100 goobood guulaysta, ee waa ninka aan dagaalba u baahan si uu guulaysto. ninka aan dagaalku u baahanin si uu guulaysto. waxaan qadiyadan u tilmaamayaa markaa waxay tahay ilaahay wuxuuna leeyahay yaa ayuha aladiina aamanu ittaqu llah waltandur nafsun maa qadamat ligad. الاعتماد على نفسه هدينو يلن كري وينو oo cid kale inoo dejiso khudadkeen iyo road mapka iyo meeshaynu marayno abid guulaysan maysid. waxaad guulaysan kartaa iyo qura markaad adigu awoodaada iyo aqoontaada iyo tamartaada iyo dalkaaga iyo xoolahaaga iyo dhulkaaga waxa ku jira ama kor saaran markaad adigu ku xisaabtanto ee adigu taas aad blangaraysato waad guulaysan kartaa. ama cid kale i wanaajinaysa warka gaaladoo dhan haddaan soo dhaafo, ilaahay kitaabka qur-aanka ee soo degay 1400 sannadood wuxuu inagu leeyahay maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli alkitaabi wala almushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadli alcadiim. ma jecla baa rabbi leeyahy kuwa gaalada ah ee ahlu kitaab iyo mushrikiinba isku dar. kuwa gaaladahi ma jecla an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum, xagga alle inaad khayr ka heshaan, ma aha inay iyagu khayrku siiyaan. xagga rabbi in khayr idinka yimaado ma jecla baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. idan mid aan jeclayn inaad xagga rabbi khayr ka hesho ayaa isagu dhankiisa khayr kaa siinaya. haddaad rumaysato waad jabtay. waxaad ka mid tahay kuwii la soo tilmaamayay. iyagu mala waa gabyaagii Soomaaliyeed sheegayay baadida nin baa kula daydaya daalna kaa badane waan doonayn inaad heshaan daayin abidkaaye dadkuna moodi dul wada dhashoon wax u dahsoonayn. yani nin Soomaaliyeed oo kale tilmaamayay, laakiin xaqiiqadu wax weeyaan waa kuwa kan. kuwan baa nooca kan u fakeraya. maxaa markaa ina saaran? khutada aynu degayno waa inay bataanaadka reer galbeedka iyo waxa la socdo dhammi ka baxsanaadaan. ilaahay baa wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanatan min duunikum laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum qad badat albagdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfi suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun. war kuwa iimaanka laga helayo war la taliyayaal aan idinka ahayn ha yeelanina baa ilaahay leeyahy way idin lugoynayaane.
لا يألونكم خبالا وإذن فسهادين ينبر ربكو شيء مركزاتنا واحد هذا خبير عدا كصعوطة هداد إيمان سنة خبراء بدل ما ليدين لكن دير كعاد من كم إذا علماء الصومالية جامعات كرر قلبات كنا رجع شوقي وين كترسان أيه وحيري وحني ما هذه السببة مركزات وحيجا صهر بحيويري نين باييري عبد حاجة دمنين يجيريان مغلبي يقول مكان أجينا وننعت ويمو هذول نكي ويس ورستين نكو محوها مركا كان يونايتد نيشنز كي قيبة دمبو هايستا لكن مركا حاجة شوغان جامعة دوحها بدي ولاها بروفيسور رضا وراقة وكلا قاعدة مركا يقول وساد حاجة كو هالشيء انتو دير كاس قبطي بيقولي دانيك أووية دي باي شقيه أديك أووية دا بان شقيني بكويري وروتي يعني أووية دا باي شقيه يعني ما خبير لإني وحوية وين إيمان سوين إلهي وحين لا يودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا وحاد هيستو أديكو هيستين أدهروا مرتمربو وحنا ما تفايدين هذا الدين الآن وحوقا دقالاكو هشو حنا ما تفايدين إلهي وحين المام يا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أيها الأحبة وحنا خطي نوبهني لكن وين نقرنا مش أينو دقنا إياه وحين ربنا إن نقبلنا إن أنا مال بنانا هينا وحي أينو دونه أنت إنو دجنا أينو سعكرنا وحيد هذان أول مراحل التخريب بين هذان مركي نظام كودا استعمالان هل كلاقب لابا بين هذين بربرين تأمده أول مراحل التخريب هو إفساد الأخلاق بين هذان ودقن دورنتا وأخلاق دول اللومياء استبقى كواد marka aad la rabto qadaayadkan saddexda ee la rabo inay ummad lagu sifeeyo first step-ka la qaada waa in dadka moralskooda iyo akhlaaqdooda iyo ethicskooda iyo valueskooda inuu dhinto that's why caalamul islaami maanta war badan looga akhrinayo ah feminism group iyo gender iyo kuwa sagiska waramaya iyo waxaan sheekhu hadda sheegay iyo waxaan loo wado dhame waa ifsaadu akhlaaqi الناس واجرتا بنادمكم ما أقبله بفطرته إلا إذا هذا حما السماء ما أقبله لكن حما شارب له وياه آدم إبليس كما ورنين جيت كان عنا الدمبابتي ده محوكو يري شجرة الخلد وملك لا يبلى ما كنت سيه قاعد مركز عنطه شجرة الخلد يا هذيك وحل ورانيا وحقوق الدمر كيا وحقوق عرورته يا وحقوق ولا شيء يا مجرى حاجة كدول مين حقوق ماشان ما تعلو إيه وحوي يا فساد أنت الدمر كيا فساد أنت عرورت يا فساد أنت ومضى أي أصله لكن شارك السريع اللي هوينا يا وحي هاي معي أري أنا تكدي دينين حقوق رايتس مركز لقوا الرما واحد سلادة هاي توح معقولة لا بس ده حمد الله كان الله شاقه لكن من رايتس با نبانين وتجا يا هيومن رايتس كمده قف بقى بدل يا هيومن رايتس كمده يعني wax badan baa leeno sheegaya laakiin waxa kale leeno sheegaya idan hadii akhlaaqdu ay lunto wa marahil fasaadku halku ka bilaabmo gaalada maanta joogta gaalka ugu weyn waa Richard Dawkins waa nabiyul ilhaad bay iyagu yiraahdaan a prophet of atheism diin la'aanta nabigeeda bay ku sheegaan inuu yahay وأنك اللي قدر يوشن أيا وحليه من الصعب جدا الدفاع عن القيمة الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين ووح أدق بولي إن أضد فاليو أخلاقيات أخلاق في عين إن تكور رمي كرتو أدقوا أن كنت أجنين بولي دول دينيت دين الآن يا أخلاقي مرنبا اسم فولا يا بولي هذا وكان لا إلهي ما شردتك ويريا وبوكي سجدل يشبك غريا حلا أخلاق لا هذا تربطه إن فاليو سون شاكتو وإن كنت أنت هيبوت المام يا محي religious ground هدارت هيسنين ما صورتك على هبوت المام يا أيها الأحبة
حلنا مركا إلهي سبحانه وتعالى وحين إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لبتشرب إلهي نوسو علي إلهي عبسيدي سينا نكود داله أجننا ولتنظر نفس. علماء واحد هذا أنا أيضا قيبته هوري مركي اللي سفري تقوى أنت إيمانكم بالله يا أيها الذين آمنوا. لكن مركي اللي سفري نولش إن لقرشيو ولتنظر نفس أي كل نفس نفيها اكتبا ليري. مركا واحد هذا النداء بالتقوى ولخصوص المؤمنين بيت الماما وهي يقوم بمنتفعين والأمر بالنظر لعموم كل نفس نفيها اكتبا إلى ما قدمت الغد بري وحظهر مرصته. الغد بريدا دوا نقون كرا بريدا دروك سنة ونقون كرا وحكاد دم بيودمي وبريتو وحكاد دم بيودمي وبريتو. إن الله خبير بما تعملون. إلهي وقنوقي هاي وحا سمين إنسان قستيقا كليدين يا بواطنتين يا ظواهرتين نبر ربي وأوقي سبحانه وتعالى. وحا هبال مركة الدنيا آخرة أيين هريا له. الدنيا آخرة اسم الله اسكو قيمنا معها اسكو الرزقي اسكو مشكلتنا معها. taasi waxay u baahan tahay marka wax la qorsheynayo keeba mudnaanta leh. yani markaad qorshe degayso nolosha waxaad qaban doontaa priorities ba kala jira waxbaad kala horeysiinaysaa siday u kala weyn yihiin u kala muhiimsan yihiin baad u kala horeysiinaysaa. qorshaheena waa inuu u weynaadaa qorshaha aakhiro dabeetana qorshaha adduunyo. marka leena waa inuu u weynaadaa qorshaha aakhiro. qofka muslimka ah ee siyaasiga ah ugu horeyn inuu ka fekeraa ummaddan say aakhiro naar uga baxsan lahayd jannana u gali lahayd. waayo that's the most important thing. waa waxa ugu muhiimsan ee aad dad u qabatid. ثانيا baad isweydiinaysaa taa sida loo gaadhayo ee adduunkan inta la joogana si aan loo kadeedmeyn ee adduunkana nolol fiican loogu noolaan lahaa. waxaan leenahay marka aynu qorshe dejinayno waa inuu priorities ku kala horeeyaa. weliba waxaa hubanti ah haddii qorshaha dambe ee aakhiro uu noqdo ka muhiimadda leh ka adduunyana automatically inuu hagaagayo. waayo aakhiro laguma gaadho adduunka kharibkiisa. aakhiro waxa iyadana lagu tagay ku islaaxdaa maxay adduunkan islaaxintiisa tan baa masraca u ah. marka ugu horeyn waa inaynu aad uga fakarnaa. ilaahay wuxuu leeyahay yawma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdara wamaa camilat min suu'in tawaddu low anna baynaha wa baynahu amadan baciida wayuxadirukum allahu nafsah والله رؤوف بالعباد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. qorshahaaga koowaad waa inuu ku jira wax kastoo aad samayso baraad la kulmaysaayee muxuu yahay jawaabtaadu. wax kastoo aad samayso adduunkan aad qabato wax kastoo aad qabato camal kastoo kaa soo fula baraad la kulmaysaa ee maxay tahay jawaabteedu. sidaa awgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dhallinyaro la talinaya. nin dhallinyaro ah inagu dhallinyarada markaynu la talinayna maxaynu ku nidhaahnaa haddaad nin dhallinyaro aragto waxbaro nin noqo xoogso guurso shaqayso soo kaamaaha taladeennu. talada ugu badanee dadku waa in dhowuunbay dadku arkaan maca kuwan ay yidhaahdeen indheer garad indheer ma arkaan indhow bay arkaan. dadku waa wada indhow garad buu badan yahay. waxaynu ilmahaaga qorshaha kuu yaallaa muxuu yahay koowaad iskuul dhigo jaamacad ka bax guurso nin noqo. taa waxaad ogoshahay inaad ku bixiso maxay waxay u baahantoo dhan baad diyaar ula tahay. waxay u baahantoo dhan baad maxay ula tahay ayaad diyaarinaysaa.
iskuulku gali lahaa kuu noqonayo jaamacaddu ka bixi lahaa kuu noqonayo kharashku u baahnaan lahaa waxaasoo dhan waa diyaarinaysaa maxaad uga dan leedahay nolosha dhow inuu guulaysto beritaad injineer noqon ama dhakhtar noqon ama saan noqon ama ka noqon marka qorshahaagu wuxuu baday ma diyaarinay dhammaanteen isku keen dar wadaad iyo wabiinba israakeen raaci intaa in leeg ma gelinaa aakhiro si uu qofku u guulaysto aakhiro si uu qofku u guulaysto programkaynu degaynaa ma ku jirtaa intaa in leegoo investment ahay bal wax kalaba ha dambeeyaane maya waxaa kugu adag macallinka qur-aanka dhiga $20 la siiyo war kuwa malcaamadooda waa qaali baa taagantay laakiin waad ogashay jaamacadda dhowrka kun inaad bixiso ee uu dhakhtarnimada ka baranayo waayo tan dhow qorshahay kuugu jirtaa oo aad baad u qorshaynaysa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu cumar oo nin dhallinyaro ah buu la talinaya garabka intuu ka dhirbahay xadiidkaa taqaaniin ee bukhaari ku yaalla kun fi dunya kaannaka gariib aw cabiri sabiil waa nin dhallinyaro ah waryaa xoogso lama odhan oo nin noqo oo guurso oo kan sameeyo xoolo dhaqo laakiin waxaa la ogyahay hadduu ta dambe fikraddeeda qabo tan hore inay islaaxayso saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku yidhi kun fi dunyaa kaannaka gariib adduunkan waxaad ku ahaataa sidii qof maxay gariiba stranger qof aan meesha u dhalanin ama waxaad noqotaa maxay aw caabiri sabiil qof musaafira qofkaas inta uu ka fakaro inuu meeshaa joogo ama qorshuhu u dejiyo qorshe leegu deji marka xooggaaga iyo xoolahaaga iyo qorshahaaga xoogeen xaggaad u dejinaysaa ta dambaad u dejinaysaa inaad ta dambe horaysiiso ayaa muhiima si awgeed ayuha alaxiba waxaynu leenahay nolosha khuda kama maaranto laabud min takhtiid lilmustaqbal laakiin takhtiidkeennu sawaa mid siyaasi ha noqdo mid dhaqaale ha noqdo mid bulsheed ha noqdo oo ummaddu leedahay ama adigu naftaadu aad leedahay ama qoyskaagu uu leeyahay wuxuu u baahan yahay inaad qorshayso qorshahaagana priority-ga koowaad inuu noqdo quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo quu anfusakum waahliikum naara war naftiina iyo ehelkiinaba naar ka ilaaliya waa layna og yahay inaynu tanso ka jecellay kalaa bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira ilaahay wuxuu leeyahay tan dhow baa jeceshiin aakhirana inta badan waa ka tegaysaan laakiin bahasha cagsiyaa laynoo tilmaamaya ta aad qorshahaaga ugu muhiimsan u degayso qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya dadka aqoonta leh markay talinayeen waxay tilmaamayeen ninkii qaaruuna xoolaha badan soo helay maxaa lagu yidhi wabtaqi fiima aataaka allaahu addaara alaakhira war wixii ilaahay ku siiyey nolosha aakhiro ku baadigoob ku raadcee walaa tansa nasiibaka min addunya adduunkanna dheeftaada ha ilaabin baa la leeyahy yacni priority-gu ama mudnaanta waxaa le maxay aakhira la leeyahay adduunkaaga ku raadcee waxaa laga yaabaa inagu xoolaha waxaad u dhaqaysa aad magac yeelatid guri weyn aad dhisatid xoolaha ma u dhaqataa inaad guri weyn jannada ka hesho mise gurigan aad ku jirtaa cidhiidhi iyo fikradda koowaad waxa weeyaan inaad ka bedasho waxaa laynoo tilmaamayaa aakhiro inay mudnaanta yeelato waaxsin kama axsana allahu ilayk adduunkana ha ilaabin baa la yidhi si alle subxaana wa tacaala uu ku wanaajiyeyna u wanaag fal aayadda ku xigta ilaahay wuxuu inooga digayaa subxaana wa tacaala kuwo qorshe ka gedisan iyagu maray qorshahaynu sheegayna aynu leenahay priority-ga waa inuu aakhira yeelataa markaad road mapka aad marayso iyo waxa aad qorshaynayso kuwa iyagu taa dabarogay baa ilaahay tilmaamay waa aayadda ku xigta marka aayadda hore amar bay ahayd tanna waa nahyi walaa takunuu kaaladiina nasuu allaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun ha la mid noqonina baa ilaahay leeyahay sidii kuwii alle ilaabay qorshaha uguma jiro ilaahay subxaana wa tacaala iyo cabsidiisa iyo aakhira iyo kani qorshaha uguma jirto
maxaa qorshahooda ku jira adduunkan siday wax uga noqon lahaayeen baa ku jira sawgeed baa ilaahay wuxuu inoo leeyahay walaa takuunuu kaladiina nasu llah kuwan maxaa ku dhaca faansaahum anfusahum toodaa ilaahay ilowsiiyaa bini aadamka maanta dunida ku nooli material buu dhisay technology-ga oo dhammi waa material buu ka warramaya laakiin bini aadamkii waa la dhisi kari laayay wuu sii baaba'aya technology-gu wuu sii horumaraya bini aadamkuna maxay wuu sii dib socdaa dhaqan ahaan akhlaaq ahaan caqiida ahaan dadnimo ahaan wuu sii bahaloobayaa bini aadamka dunida jooga bini aadamka dunida jooga dal dhan baa waxaa loo baabi'inayaa in yaroo dhaqaalaha in laga helo dan kale iyadoo aan laga lahayn shidaalkiisa la boobo ama waxoogaa macdan oo ku qarsoon la soo qaato idan wuu sii bahaloobayaa marka wixii naftooda dari ugu jirta ee la ilowsiiyey ama ay ka tageen faansaahum anfusahum ulaa'ika hum ulfaasiquun kuwa layna yidhi ha la mid noqonina waa kuwee almunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacdin ya'muruuna bilmunkari wayanhawna cani ilmacruufi wayaqbiduuna aydiyahum nasu llaha fanasiyahum kuwa masaladan ku sifaysani kuwa naftooda ilaabee ilaahayna tooda ilowsiiyey ilaahay ilaabee ilaahayna naftooda ilowsiiyey waa munaafiqiin baa ilaahay tilmaamaya alyahuuda wanasaara fi suurati almaa'ida aayadda 13 iyo 14 isku xiga qolo walba ilaahay wuxuu leeyahay wanasuu xadda mima dukiruu فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا في سورة الأعراف إلهي كتل مامية إذن أيها الأحبة كوي قرشه آخرة أبو الريد قرآنكم حكوت المامية قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم كوي جنة قالي وحيلين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين دوني ده مركانو جوجني بقى حسابتنا وجرتي الله كعبسه مركانو ريرها يجي يدك يجي لتشوجني أيانو إلهي كعبسنا سبحانه وتعالى سيدا وجدنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم كوي قرشها سكح ما دينا آخره إلهي وحنا قلت المامي قال إنا وردنا يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي نقول الشيء ده ما هو حوار مرصده أيها الأحبة وحنفلي وقتي سلادين قاعدي وانقبي قبينيا قد الله إذا ضاق قيبتك على وقتك لا كورمي ها آيات كان كسو كوبيا كو نولش قرش الآن ما صعته سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يدقن كيسي بناينا بريا دين تانا ينا فريسة إلهينا وحينا لي ور مستقبل كينا آغا مستقبل كاين لآغا وحي وباهنت بين لاني كو الله كعبسي لبا وحي وباهنت بين لاني إني نكدد ما ينفعنا في الدنيا والآخرة وإننا عاجزين صدح وحي وباهنت هاي إني دوني دوال يسلمين يايه رزقي قوة تربدا إني نقرشك يالانو سينو يساقا أودي لهين أما يساقا جوجين لهين هدو يهي نفتاده يهدو يهي قويس كاغا يهدو يهي ومداده با رزقي قاتاقان ساد ساقا أودي لهين أفر وحينو باهنا إنينو إيغنو مستقبل كدير إنينو مدنانتو كوات سينو مستقبل كدوية مدنانتي سنة هدين وقتها لا وقت كلينو كورمي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين